واركتان أرجحسدان أو إنما هيرتان نحين أو تلمامنا يا أما برتلمام السنة يا meelaha dadka shacabka ah ee joogan ama looga adeego waxay muujinaysaa dadkan inay yihiin cadow Soomaaliyeed inay yihiin cadow Islaan inay yihiin oo ay tahay kulli shacabka iyo dawladdu inay meel isaga soo wada jeestaan ciidamada qalabka inay istaagaan qof walba oo dhalinyaro ah iyo qof walba oo Soomaali ah inuu istaago sidii aan uga hortagi lahayn qorarkaas aan ummadda Soomaaliyeed inaba ha yaraatee aanu naxayn oo aan laba jibaarno hawlgallada iyo hawshan ku jirnay iyo isdiyaarinta sidii aan dalka uga xoreyn lahayn marka hore eeba ayaa mahad leh oo inoo suurtageliyay inaan maanta oo Isniin ah 10 Sebtembar 2018 aan isugu nimaano furitaankan kalfadhiga afraad ee golaha shacabka ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya marka labaad waxaan u mahadnaqaynaa guddoonka iyo xildhibaanada sharafta leh oo fursadan qaaliga ah isiyay si aan u furo kalfadhigan taasoo kamid ah waajibaadkayga dastuuriga ah kalfadhiyadii hore waxa golaha shacabka u suurtooday ama u suurta gashay shaqooyin muhiim ah oo aasaas u ah geedi socodka dawladnimada Soomaaliyeed waxa kale oo wali jira shuruucyo badan ama shuruucyo muhiim ah oo wali hor yaala kuwaas oo u baahanahay in si degdeg ah loo ansixiyo hadduu Ilaahay yiraahdo dalkeenu wuxuu ku jiraa geedi socod siyaasadeed mid dhaqaale amni iyo bulsho qof kasta oo inaga mid ahna mas'uuliyad yaa ka saaran arintaasi sidii aan uga mid dhal lahayn qorshaha dawladda ee inta uga harsan waqtigeeda wuxuu ku urursan yahay arrimaha amniga iyo cadaaladda siyaasad loo dhan yahay horumarinta dhaqaalaha iyo horumarinta arrimaha bulshada iyo wacyigelintooda dawladda federaalka Soomaaliya waxa ka go'an inay dalka gaarsiiso xasilooni nabad waarta iyo barwaaqo iyadoo oo loo marayo dib u habeynta dhinaca amniga oo ah udubdhaxaadka horumarka iyo xasiloonida qaranka kuna salaysan cadaalad ka kooban ciidan iyo garsoor xalaala oo sharci ku ilaaliya danta dalka iyo dadka fulinta hanaan kamila dhaliya rabitaanka ummadda Soomaaliyeed ee ku salaysan ciidan amniga looga seexdo iyo garsoor cadaalad loogu yimaado haystana kalsoonida shacabka ummadda Soomaaliyeed geedi socodka siyaasadeed ee loo dan leeyahay oo ka kooban arrimaha dib u eegista dastuurka federaaleynta iyo doorashooyinka waxay qeexaysaa talaabooyinka laga maarmaanka u ah xaqiijinta qabashada doorashooyin toos ah oo leh halbeega caalamiga ah hadduu Ilaahay yiraahdo oo Ilaahayna gaarsiiyo 2020 waxaa heshiis lagu gaaray ama laga gaaray siyaasadda wada xaajoodyada ee wadaaga kheyraadka sida kalluunka batroolka macdanta iyo hanaanka doorashooyinka dalka waxaa la dardargeliyay qaadista canshuuraha taasoo ah jidka kaliya ee aan kaga bixi karno gacan hoorsiga shisheeye uuna shacabka Soomaaliyeed ku heli karo adeega dawladda sanadkii 2017 waxaa dakhliga gudaha ee dalka la gaarsiiyay heer aad u wanaagsan iyadoo ay khasnadda dawladda ku soo xarootay 140 milyan oo doolarka Mareykanka ah sanadkan 2018 waxaa la filayaa in dakhliga uu intaas ka sii kordho hadduu Ilaahay yiraahdo waxaa guul la taaban karo laga gaaray barnaamijka geedi socodka deyn cafiska oo ku salaysan heshiis ay wada galeen Soomaaliya iyo hay'adaha lacagta adduunka ee IMF-ka loo yaqaano si deynta adduunka ay nagu leeyihiin oo gaaraysa 5 bilyan oo doolarka Mareykanka ah la inooga cafiyo isla markaasna ay Soomaaliya
u hesho deeq iyo dayn wax ku ool ah oo loogu talagalay dib u dhiska iyo horumarinta dalka. dhammaan shuruudihii muddoodka ahaa ee aan gaarnay oo ku xirnaa cafiska deyntaas lacagta ah waan ku guulaysanay ilaa maanta. waana tan sababta u ah in midowga Yurub uu inoo ballan qaado taageero miisaaniyadeed oo gaaraysa 120 milyan oo doolarka Mareykanka ah. waxaa la diyaariyey isla markaasna golayaasha baarlamaanka loo gudbiyey shuruuc taageeraysa kobcinta dhaqaalaha iyo maamul wanaag oo ay ka mid yihiin sharciga maalgashiga, sharciga maamulka maaliyadda, sharciga shirkadaha, sharciga hanti dhowrka iyo sharciga la dagaalanka musuqmaasuqa. waxaa iyana dhowaan la soo diyaarin doonaa sharciga maamulka dakhliga gudaha iyo dibadda labadaba. waxaa sidoo kale horumarinta arrimaha bulshada oo lafdhabar u ah dowladnimada Soomaaliya sida adeegyada aasaasiga ah ee bulshada, caafimaadka, waxbarashada, korontada iyo biyaha iyo wixii la mid ah laga gaari doonaa horumar la taaban karo mustaqbalka insha Allah hadduu Ilaahay yiraahdo. وما سنتين qorshaha dawladdan muddo xileedkeeda ka dhiman waxaa ka mid ah in 40 sharci oo ay 17 ka mid ah ay baarlamaanka la yaalaan la meel mariyo, in la dejiyo 29 qorshe siyaasadeed ama national policy, in la dhiso 17 guddi iyo inaan dhisid iyo dayactir ku sameeyno 32 xarumood oo dawladdu ay leedahay. kobcinta dhaqaaluhu wuxuu ka mid yahay barnaamijka hay'adda fulinta ee dawladda federaalka Soomaaliya. inkastoo adduunyadu nagu tilmaanto inaan ka mid nahay dalalka ugu saboolsan dunida, haddana waxaan haysanaa wax walba oo dal uga bixi karo faqriga. haddana annagoo og in dalkeennu Ilaahay ku manaystay khayraad aad iyo aad u fara badan oo noocyo badan oo ay ka mid yihiin xoolaha, beeraha, kalluunka, shiidaalka iyo macdanta dhulka hoostiisa ku jirta, waxaa dawladdu dadaal u gashay sidii dhaqaalaha loo kobcin lahaa loogana bixi lahaa caqabadaha dhaqaale ee saameeyey nolosha dadka Soomaaliyeed. tallaabooyinka dhaqaale kobcinta la xiriira ee hay'adda fulinta ay juhdiga badan gelisay waxaa ka mid ah waxaa la dardargelinayaa hadduu Ilaahay yiraahdo waxaan dardargelinay qaadista canshuuraha, taas oo ah jidka kaliya ee aan kaga bixi karno gacan hoorsiga shisheeye iyo shacabka Soomaaliyeed uu helo adeeg dawladeed waxaa shaqo abuur loo sameeyey dhalinyaro badan oo gaaraysa 2,000 oo qof, iyadoo qaar kalena insha Allah hadduu Ilaahay yiraahdo dhawaan aan rajeynayno inaan shaqo abuur iyo xirfado shaqo aan u sameeyno. waxaan hagaajinay nidaamka hufnaanta maaliyadda oo fursad noo siisay in Soomaaliya la aamino mar kale oo dib loogu xiro hay'adaha dhaqaalaha adduunka oo aan macaamil wanaagsan la yeelano. mudanayaal iyo marwooyin, siyaasadeenna arrimaha dibadda waxay ku dhisan tahay is-ixtiraam, tixgelin madax banaanida dal walba uu leeyahay in la ilaaliyo, iyo wax wada qabsi iyo iskaashi. waxaad la socotaan in Soomaaliya ay door weyn ka ciyaartay ama door weyn ka qaadatay iskaashiga dhaqaale kan ka qaadaya insha Allah hadduu Ilaahay yiraahdo geeska Afrika. waxaa guul inoo ah
inaynu bilihii la soo dhaafay aynu dadaal ku bixinay ka qayb qaadashada sidii loo dhammaystiri lahaa isfaham darrada ka dhex jirta dalalka gobolka geeska Afrika ka dhexeeya. waxaan soo xirnay waa mahadsantihiin waxaan soo xirnay albaabkii u dambeeyey ee isfaham la'aanta dalalka gobolka geeska Afrika waxaanan u gudbaynaa maslaxad waxaan u gudbaynaa marxalad khilaaf la'aan ah ama zero conflict la yiraahdo ama zero tension la yiraahdo aan aadayno iskaashi iyo wax wada qabsi gobolka geeska Afrika. waxaa soo noqday sumcaddii iyo sharafkii ay Soomaaliya ku lahayd caalamka waliba meesha aan rabnay ma soo gaarin 10% laakiin waa u soconnaa hadduu eebbe yiraahdo. waxaan jecelnahay inaan idinla wadaagno in shirkii madashii iskaashiga Soomaaliya iyo Brussels EU-da European Unionka ay ka soo baxeen natiijooyin kaabaya shirkii golaha amniga ee horaantii bisha Juun ka dhacay magaalada Baydhabo halkaasoo lagu saxiixay hanaanka doorasho iyo kheyraad wadaag ee dalka. shirkaasi oo isugu yimaadeen dowladda federaalka Soomaaliya dowlad goboleedyada xubnaha ka ah iyo gobolka Banaadir wuxuuna sii xoojiyey xaqiiqatan iskaashiga nagala dhaxeeya beesha caalamka. shirka Brussels ka dhacay waxay beesha caalamka ku amaaneen intii timidba ku amaaneen horumarka ay dowladdan tiigsanayso maalin walba ama maalinta ka dambaysa ayna cadeeyeen taageerada buuxda ee u hayaan dowladda. mudanayaal iyo marwooyin macnaheedu waxay tahay inaan ku soconno jid wada sax ah inaan ku soconno ciddii wax nagu kordhinaysana inaan laba talaabo hor u sii qaadana waa soo dhaweynaynaa. mudanayaal iyo marwooyin dalkeenna waxaad ogtihiin waxaa gaaray burbur baaxad leh oo xooggan yaa gaaray dib u dhiskiisana waa howl u taalla dowladda keliya maaha shacabka Soomaaliyeed ay si wada jir ah uga shaqeeyaan. haddaba annagoo garwaaqsannay baaxadda burburkaas iyo wakhtiga dheer ee aan dunida ka harnay waxaa nala gudboon inaan u istaagno dib u dhiska dalkeenna. waa koow dib u dhiska dalkeenna oo cid noo dhisaysa aysan jiri doonin cid lacag nagu siinaysan aysan jiri doonin. labo dib u xoreynta dalkeenna oo maanta aad arkaysaan carruurteenna horteenna lagu xasuuqayo inaan qolooyinkan horarka ah oo argagixisada ah inaan uga xoreyno dalka oo kulligeen aan wada istaagno. iyo dib u soo nooleynta kaabayaasha dhaqaalaha iyadoo loo marayo olole la yiraahdo aan ku magacawnay ololaha isxilqaan oo qof walba oo Soomaaliyeed ay ka inuu qayb ka qaato. ololaha isxilqaan oo aasaas u noqonaya in Soomaaliya ay cagaheeda dib isugu taagto waqti kooban gudihiis hadduu eebbe yiraahdo. mudanayaal iyo marwooyin ololahan isxilqaan pamphletkeeda iyo informationkeeda waxaan rajeynayaa inaad wada haysaan macnaha barnaamijyada iyo qaabkan u shaqeyn doona hadduu Ilaahay yiraahdo. ololahan isxilqaan waxa uu halbeeg u yahay u diyaar garowga sanad guurada 60aad. hadda waxaan ku jirnaa 58 yaan ku jirnaa sanad guurada 60aad oo 2 sano ka bacdi ah ee maalmaha xorriyadda Soomaaliyeed ee ku beegan 2 sano kadib. ummad walba waxay horumar iyo barwaaqo ku gaartaa markay isku tashato wax wada qabsato gacmaheeda ku hagar baxdo sida ay Soomaali hore u tiri biyo sacbadaada looga dhargaa. waa waajib
qofnimo oo saaran muwaadin kasta oo Soomaaliyeed waa waajib islaamnimo oo saaran qof walba oo muslim ah inuu qurxiyo inuu hormariyo inuu wanaajiyo bay'ada uu ku nool yahay barnaamijkan isxilqaan wuxuu kaloo halbeeg u yahay wadaniyad ama wadaniga dhabta ah ee ka dhiidhiya dayaca dhulkiisa hooyo wuxuuna ku qotamaa mabaadi'da asaasiga ah ee dastuurka uu ku dhisan yahay oo si cad ugu qeexayo xuquuqda iyo waajibaadka muwaadinka laga rabo ololaha isxilqaan waa barnaamij waxqabad Soomaaliyeed oo asaaskiisu yahay dhaqanka Soomaaliyeed oo ah isku tashiga isku tiirsanaashaha iyo isgargaaridda heer walbaba waa barnaamij gogol xaar u ah soo bandhigidda waxqabad muuqda oo horseed ay ka tahay xukuumaddan oo aan doonayno inaan dhammaystirno ka hor muddo 2 sano gudaheeda hadduu Ilaahay yiraahdo barnaamijkan isxilqaan waa olole dadweyne sax weeye dawladda hogaaminaysa waa olole dadweyne oo ku dhisan iskaashi si loo dhiso dugsiyadii naga dudumay wadooyinkii naga burburay golayaashii murtada iyo madadaalada iyo wacyigelinta jardiinooyinkii iyo kaabayaasha dhaqaalaha ee guud ahaan dalka ka burburay si loo fuliyo barnaamijkan isxilqaan waxaa la sameynayaa guddi heer qaran oo ka kooban wasaaradaha ku shaqada leh ee xukuumadda bulshada rayidka ah culamaa diinka iyo ciidamada qalabka sida waxaa la abuurayaa injineero iyo farsamo yaqaano ka shaqeeya hawlaha dib u dhiska iyadoo jimco walbaba hadduu Ilaahay yiraahdo muwaadin walba oo Soomaaliya la doonayo inuu galiyo 2 saac iyo bar dib u dhiska dalkiisa wadamo badan yaa soo maray burburkan soo marnay maantana ay tahay in lagu daydo mar raba inaan magacyadooda sheego Afrika ku yaalaan muddo yar gudaheeda dadkeeda dhistay iyadoo kaalmo dibadda aysan uga imaanin annagana waana lagu yaqaanaa haddaan Soomaali nahay kartida iyo hufnaanta iyo firfircoonida waana lagu yaqaanaa haddii aan hal meel aan u baxno ama aan si midnimo ah aan wada shaqeyno guddigaana sheegay ayaa abaabulaya bulshaweynta Soomaaliyeed hadday yihiin dhalinyaro waayeel haween shaqaalaha rayidka ah iyo ciidamada qalabka sida barnaamijkan ayaa ku dhisan in qof kasta xoogiisa xoolihiisa iyo xirfadiisa ugu tabaruco dalkiisa hase yeeshee waxaa la furi doonaa sanduuq isagana oo aan ku aruurino dhaqaale dadka qurba joogta ah ganacsatada bulshaweynta Soomaaliyeed ay ugu deeqayaan barnaamijkan wajiga koowaad ee barnaamijkan isxilqaan waxaa laga bilaabi doonaa hay'adaha iyo dhismayaasha dawladda ay ka mid yihiin madxafka qaranka golaha murtida iyo madadaalada ama tiyaatarka maktabadda qaranka xaruntii dhexe ee xisbiga Muqdisho Stadium oo hadda laga baxay isbitaalka Banaadir iyo guud ahaan dhismaha وما سنتين مدنيان iyo marwooyin waxaan rajeenayaa in xildhibaanada sharafta leh ay door weyn ka qaataan barnaamijkan isxilqaan oo aad hormood ka noqotaan waxaan sidoo kale halkan ugu baaqayaa shacabka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan inay kaalintooda ay ka qaataan oo mugle qof walba oo Soomaaliyeedna waxaan ugu baaqayaa hadday tahay xoog hadday tahay khibrad hadday tahay dhaqaale
wixii awoodooda inay ku tabarucaan oo ay uga qayb galaan ololahan isxilqaan waxaan ku soo gabagabeynayaa in maanta oo ay bishu tahay 10 Sebtembar 2018 inuu noo furan yahay kalfadhiga afraad ee golaha shacabka waa mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh